السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد الصوماليات ملك استادونا دافية كجوكتان سودا وهذا أهلا كانوا ودائما تيفي ودق ودمايسترن دائما تيفي أصحاب تنوع سبسكرايب عن كبوريننا لايك يو كومنت يو شير ندمانتين سودا وهذا مرلبات واحد وليد إحدى وجدنا مسلسل كي جميسته دبعته جميسته أفريقيا وجتجي قاردنا أفريقيا مدو دبعته جميسته وجتجي سودو قنيمستي oo nimcadeedu u gurtay baynu ka soo hadalnay waxaanu ka soo hadalnay sidoo dadkii madaxa isugu galiyay qofkii raba inuu fiidiyoogii baartadii labaad maalin hore baartu weyn ma soo galiyay basaakadii hore baartu 2 baan soo galiyay baartu 3 baynu hadda ku jirnaa ama qaybta saddexaad bay hadda ku jirnaa marka qofkii raba inuu qaybta labaad daawado linkigan kor ka soo baxaya ama kaadka sare uu ku dhufan karaya xitaa fiidiyooga marka dhameysatid dib aad u soo bilaabi kadhaa kadibna markuu kaadku ku soo baxad ku dhufan kadhaa soo dhawaada ummadda Soomaaliyeed marka istaaduunada daafeeda ka joogtaan gumeystaha Afrika dib badan buu uga tagay ummadeedii madaxu galiyay waa qaniimaystay markii uu ka baxay marka dhibaatooyinku ka tagay qaybta ugu xumayd waxa kamid ah markii uu ka tagay gumeystuhu Afrika ka tagay dadkeedii madaxii buu isii galiyay oo isku sii diray hal tusaale waxaanu ku fudud markii Soomaaliya la siirayay xornimada ay Soomaaliya qaadanaysay Soomaaliya gobolada waqooyi waxa la siiyay 26 Juun gobolada koonfureedna waxa la siiyay 1 July dhowr maalmood baa u dhaxaya sababta sidaas maxaa loogu yeelay si had mar walba uu muran oo ay u ahaato anaga xorriyadda idin ka hor qaadanay idinku waa naga dambeyseen laba wadan baynu kala ahayn waxyaalo badan yaani ba halka ka dhalan karaya sababta loo kala siiyay labada maalmood ee kala duwan xorriyadda dadka Soomaalida loo siiyay wixii tahay si dadka Soomaalida ah ay madaxa isula galaan anuu nin odaya ilaahay ninkaas waa dhinta ha u naxariisto oo nin odaya aad u sheekaysan jiray saaxiib dhowna aan ahayn oo nin waayo la daa ilaahay jannada raxmaha u siiyo oo jannadiisa iyo raxmadiisa siiyo idinkuna u soo duceeya wuxuu ugu yiri waliba habeenka waa badnayn dhalinyaro badan baan ahayn ninkaas wax badan buu noo sheegi jiray waxa laga yaabaa dad fiidiyowga daawanaya inay garanayaan ama ay soo xasuustaan wuxuu nagu yiri odaygaasi oo nagu yiri Soomaalida gumeystuu korbay ka fiiriyeen waxdan Soomaalidu dad loo gali karo ma aha waa dad diin leh waa dad dhaqan leh hawshooda kuwa lagu degdegi karo ma aha bay dhaheen maxaa la samaynayaa buu yiri marka odaygi baa noo sheekaynaya moogtaa wixii dhig gumeystii dib ay isugu laabteen wadamadoodii ku laabtay waxdan Soomaaliya wuxuu baantaa shax adag in lagu qabto Ingiriiska marka Faransiiskii iyo waxa ku dheen Talyaaniga Ingiriiska wax ku dheen ada aabihii shaxda ah ada aabaha shaxda dejiye maxaa xal ah seebaan Soomaaliya ku qabanaa adigu shaxda deji wuxuu yiri Soomaaliya soo ma aha qofka bini aadamka intee buu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood Ingiriiskii baa wuxuu leeyahay Faransiiskii Talyaaniga iyo Yurubiyaanki kala gumeystayaasha wuxuu ku leeyahay iyaga ilaa waxdan ada shaxda naga badiyo kaartista weyn oo kaartada ku dheereeyay si Soomaaliya ku qabanaa marka Ingiriisku wuxuu leeyahay Soomaaliya waxnu ku qaban karnaa qofka bini aadamka intee buu ka kooban yahay waxdan 5 qaybood uu ka kooban yahay madaxa labada gacmood iyo labada lugood waa gartay madaxa labada lugood iyo labada gacmood marka wuxuu yiri 5 uu ka kooban yahay qofka bini aadamka baa loo kala qaybinaya ma garatay hadii ilaahay idmaayay madaxa waxa gumeysanaya qayb gacanta midig waxa gumeysanaya qayb gacanta bidix waxa gumeysanaysa qayb gacanta midig lugta bidix waxa gumeysanaya qayb lugta midigna waxa qaybsanaya qayb marka waxay dhaanaysan Soomaaliya weligeedba u kicin oo Soomaaliya aysan marnaba aysan yaani maadaama wadan islaam tahay aysan dad wax maqlaayana aysan ahayn waxaynu sameeynaa xaasnimadii ugu xumayd labada lugood waxaynu u dhiibaynaa laba wadan oo Afrikaan ah laba weligood marka ma kacayso si kastay madaxa ula soo baxdo si kastay gacmaha u taagtaagto ma garatay marna ma soo kici karto Soomaaliya labada lugood waxaynu siinaynaa laba wadan oo Afrikaan ah labada lugood ku dhajinaynaa haye Soomaalida Ethiopia iyo Kenya oo NFD gobolka NFD iyo gobolka Soomaalida Kenya xalii labada Soomaalida Ethiopia labada lugoodba labadii lugood weeye labada wadan aynu kala siino Afrikaanka inta qaarka sare ee soo hartay madaxa iyo labada gacmoodna wadamadeena maxaa la yiraahdaa Yurubiyaanka ah baa haynayna
xitaa inagu markaynu hadhow ka baxno Afrika ilan qaaradeeni maahay labadii lugood baa laba wadan oo kala haystaan weligeed kici mayso bal eeg xaasnimada inta tira la eg oo Ingiriisku shaxda uu degayo fiiri inta xaasnimo iyo dhagar la eg tahay dabadeedna labada gobol baa labadii lugood baa labada wadan lagu kala daray Ethiopia iyo Kenya lagu kala daray intii qaar ka soo hartay Ingiriisku wuxuu yiri anigu midigta madaxa qaban maayo waa la fahmaya ma garatay intan dhulka ugu weyn oo Soomaali Itaaliya la oran jiray Talyaaniga nin maskiin oo basiid oo la fahmi kare isaga aynu u dhiibno saan leeyno ka shakiyin sidii baa Talyaaniga waxa loogu dhiibay goboladii Soomaalida inta dhulkii deermi raas casir la raas Kamboni inta ugu badnay loo dhiibay labadii gacmood mid kamid ah buu Ingiriisku qabtay waa dhulkan Soomaali British loo yaqaan maantana Somaliland la yiraahdo gacantii soo hartayna Faransiiska la siiyay waa Djibouti waxay Faransiiska adiga aan weliga meel la ka kacayne hadaan ku dhiibno koonfurta Soomaaliya ama waqooyiga Somaliland meesha hadda loo yaqaan aan ku dhiibno weliga ka kicimaysid Soomaalina waa isku dhamaanaysaan waa islaynaysan ma garatay Djibouti waa meel yar ah Djibouti qaado sidii buu ku qaatay ilaa hadda Faransiis baa يعني دي ودن كسو فرانسيسكو غميسا ولي وا هايستا موقت كوربو كا هايستا عاديه marka Djiboutina Faransiiski baa la siiyay saasasti Soomaaliya ahayd ee qaranka ahaan lahaa saasa loo kala qaybsaday Soomaaliya hashi maandeeq gabigeediba saasa loo qaybsaday tii Soomaaliya ahayd shan baa laga kala dhigay labada lugood laba wadan Afrikaana la siiyay intii kala Yuruubiyaan baa qaatay markay ka baxeen hada intiiba Saalix leh Soomaaliya inta saad Saalix leh siyaad baraaw dabcayno lug la soo baxo waa laga jaray ruush ay dad iskugu dhawaayeen bal inay gaaladu mid tahay baan ku sheegayaa al-kufru milla waahida inuu nabigu run badana kaleey salaatu wasalaam wixii gaaladu waa mid quraankeena iyo xadiistana wax walba inuu ku cadiinay inaga iska dhiga tirayna ma ahane ma garat inaga iska dhiga qabanayna ma gaaladu waa milla waahida siyaad baro ay ruush dad iskugu dhawaayeen oo agtiin jacayl ruushka u qabo inuu keenay Soomaaliya nidaamkii aan wiil ninkii naagtu waa siman yihiin isku siba wax u dhaxlaayaan ma garat uu yiri sudus iyo sulus iyo wax shaqayn kara ma ah 2020 inagoo joogna maanta 2020 joogna ba jaamacadda Harvard ee Mareykanka ugu horeysay jaamacadaha adduunka ugu horeeyay lagu tiriyo waxay maalin dhawey tiri sanada kan in ku jirno sharciga ugu saxsan ee dadka lagu xukumi karo waa Quraanka Kariimka ah qofkii raba uu raadin kara Google-ku ka raadin kara dastuurka ugu fiican waxay u aqoonsadeen Quraanka Kariimka inuu yahay waa 2020 nidaamkii shuyuuciyada Afrika lagu soo waday oo Soomaaliya la keenay oo dawladda kacaanku ay keentay 1970 ba waxay ku leedahay sudus iyo sulus ma shaqayn karaan maanta 2020 waxba la ogaado Quraanku inuu yahay waxa ugu fiican ee dad lagu maamuli karo عجيب قرآنك ومعجز واحد جرى لبا معجزو قرآنك أنا ku arkay Cabdiqaaliqan indhayga aan ku saaray video waan ka diyaariyay channelkayga ku jiraan hadii kaadku uu kor ka soo bixi karayo uu kaadku kor ka soo bixi karayo linkiga laba mucjiso quraanka waad ku dhufan kartaa waad daawan kartaa marka siyaad baro ay ruush dad iskugu dhawaayeen oo nidaamkii shiyuuciga Soomaaliya ku abli gareynayay oo inuu ku socodsiiyo baa jabiyay siyaad bar jabiyay dagaalka 77 inagoo dhanna weyn ogna marka siyaad baraa wuxuu ugu dhawaa inuu lug la soo baxo lagta midig hadaa lugta midig la soo baxday lugta bidix ninjiis dhag Kenya tartiib uga soo bixi lahay laakiin ruush ay dad iskugu dhawaayeen baa lugtu ku dhagay oo yiri kala biximaysa gaalada marka lagu leeyahay ruush Mareykan baa isaaya xagee iska hayaan waa isfahansan yihiin dadka ruush iyo Mareykan baa iskugu jecel yaan been leedin sheegin yaan leedin waalin ruushku wuxuu yiri haduu Mareykanku wadanka ku duulo ruushkuna wadankaas u soo hiilinaya arto waxaan garan laahay dadku yaani maskaxdoodu waliba dadka sida loo sheegayo waa dadka hadana wax la barayo oo taariikhda waxa lagu hayaa dagaalkii labaad ee Yurubiyaanku markay dagaalkii labaad adduunka waxay ula baxeen dagaalkii labaad ee Yurubiyaanku dagaalayeen meesha ruushka markii la qabsan rabay oo ninkii Hitler oo galay oo Jarmalku ay galeen oo rabeen in ruushka la qabtaan Mareykanka u soo gargaaray oo dagaalka ku soo biiray oo Faransiiska markii la qabsan rabay Mareykan baa u soo gargaaray ma garatay waa isku jireen dadkii sida iskugu hiilinayay baa wax lagu leeyahay maanta waa ishayaan oo midba midka kale u dhaaranaya war yaan been leedin sheegin dadkaas iska keen jecel
ما قرتي إسككين جعل دتكاس ورب ما هيسان باليتا وحيري نكي عربية قبيي ولا تعدد المولى شريكك في القنا ولكنما المولى شريكك في العدم ولا تعدد المولى صاحبها كترين شريكك في القنا نينك أدهانتر صاحبك كتين وأتشيركتين صاحبها كترين ولكنما المولى صاحبك حوي شريكك في القنا نينك ولا تعدد المولى شريكك في القنا ولكنما المولى شريكك في العدم يعني نينك أتشيرك هانتر كتين صاحبها كترين لكن صاحب واحد كترسا ما أنت فخر وكويستو يكوجد تاجن تاي نينك وحكوسية كاسا صاحب لي رهلا وارنتيس marka ruusku maalintii la qabsan rabay oo awalba waxba ma uusan ahayn la qabsan rabay gabigiisa la qabsan rabay Mareykan baa u soo hoyliyay ma garat dadkii sida iskugu soo hoyliya maanta waxa lagu leeyahay waa isdagaalayaan oo xirayna inay islaayaan oo isku dhuftaan nuclear isku dhuftaan wariyaan been leedin sheegay marka tusaale kale waxa kugu filan ruushka oo siyaad bar iskugu dhawaayeen dad ma garatay ba Soomaaliya markay lugta midig la soo bixi rabto Itoobiya gobolkaas iska xudeen rabto lugteeda la soo bixi rabto calankeeda taagan rabtay Soomaaliya dhexda dhabarka ka jabiyay marka dhibaatooyinku inoo ka tagay inaga ka Soomaaliya wax kamid ah kala qaybinta shan laynoo qaybiyay oo shantaba hadduu hal mid gumaysan lahaa roonaan lahayd oo khayrkiina ku jir lahaa oo iswaafaqi lahayd ma garatay oo jamaacada yadullahi macal jamaaca gacanta ilaahay wixii la jidhaa wixii kooxo isku xiran waynu ahaanay laakiin qaybar waxa loo dhiibanin oo la yiri iska gumayso adigu qaybar nin baa loo dhiibay oo la yiri iska gumayso adigu ingiriiska baana shaxda degay waxaana la ogaaday Soomaalidu inay yaaci karto ay Afrika ka yaaci karto ama wadanka ka yaaci karto say wadamo kale ay u tagaan oo markaas ay dhaqankoodii iyo diintoodii wax walba ay u bedelmaan marka dhibaatooyinka inaga inoo ka tagay odaygaas ilaahay jannada raxmaha siiye habeenka markuu sheekada nooga sheekanay kuligeeyo waa aamusnayn waana yaabanay sidaasan gacmaha isu gaabshan qaybna dhafoorkiisa u haysteen yaab dartii saas dhafoorka u haysteen maxaa yeelay يعني وحنا ناشج نو إفتيمية وحنا ولقي أوجين أنا نكو فكرين مركا وحلا ربع مركا أو حالكو كجرا ومدة الصوماليات إن يجدوا إسكو حرناتو ومدة أفريقيا كا إن يجدوا إسكو حرناتو على ربع ومدة أفريقيا كا إن يجدوا إسكو حرناتو على ربع ومدة الصوماليات إن يجدوا إسكو حرناتو على ربع صومالي وين يساعدنا قبل بالإسكو هيا أنا حاجة ما قرأتي الدون كنا قارضها على السوق بيا إنك سيروب أيسن بقارضها هين عيري باللي سو قارتي نيم بعيري عيب وين جدا قارض جبي جدا وودن الدون كويا الكوين هاي ودن أفريقيا وكوين هاي وحلا شجع السودان بتك وحن جعل هنا جغرافي هان عن قصة دياريو دوكيمنت ساعد ودعوتان السودان إنتان لك على جرين وحلا بكون كوي تمن كوري wadamada Yurubiyaanka Ingiriiska Faransiiska meelaha inuu tahriibna de meelaha inuu tahriibno Soomaalidu si fiican baynu garaneynaa Suudaan baa ka weyn gabigeeda ka weyneed marka Ruushka laga reebo intooda kale oo Yurubiyaanka Jarmal Austria Faransa Ingiriis kulli isku dar Suudaan baa ka weyneed intaan Suudaan la kala jarin ma garatay marka qaarad wixii ka dhigan Yurubiyaanki qaarad ka dhigeen waxaan la yaabay mar aan buug akhrinayay inaan hadalka ma hadda koor sheegayna waan jeclahay laakiin waxnu maleynaa inaan fiidiyoyadaydan aan ku soo darin madaxweyne soo maray Mareykanka waxnu maleynaa Roosevelt ahaa Franklin Roosevelt inuu ahaa baan u maleynaya dikaas wuxuu yiri adigu waxay ahayd 1793 bay qarnigii 18aad bay 1793 wuxuu yiri iyadoo la raacayo tusaale ahaan United States of America ama goboladan Mareykanka gobolada midooba Mareykanka adoo Mareykanka ba iska dheh iyadoo Mareykanku waa gobollo isu tagay moogta Minnesota Texas Indiana dadka gobolka Indiana ku nool waa dadka saxda ee Mareykanka iska lahaa way dadka Black American-kana waa dad la geeyay dadka Yurubiyaanka meesha dhooban oo Trump uu ka mid yahay waa dad meesha ku habsaday oo tagay way ما أهنداد ولا شيء دتك إسكال أمريكان كوا دتك إنديانا اللي يرهدوا قبل كإنديانا كنا وهندي عصيد مع إسكاله بإسكاله وإسكاله ده أمريكان كإسكاله
red indianis baa la dhahaa alhunuud alxumar taariikhda carabiga marka la dhigayo lagu dhihi jiray red indianiska gobolka indiana wax yar iyaga ka midaba hadda ku haray oo gobolka ku nool dadka waa la laayay waana dadka Mareykanka xaq u lahaa madowguna ma laha Yurubiyaanka meesha isku dhoobayna ma laha ma garatay hasa ahaatee ninka Franklin D. Roosevelt baan hadalkiisa wadayay D. Roosevelt wuxuu leeyahay iyadoo la raacayo Mareykanka iyadoo la raacayo tusaale ahaan buu yiri iyadoo la raacayo sida Mareykanku uu yahay gobollo isu tagtagay United States of America maalmaha kamida waxa dhici doonta buu yiri United States of Europe so hada United States of America ma jiro USA wixii iyadoo taa raacay waxa jiri doona United and Europe countries oo kale yaani midowga United Europe States waliba isagu yiri gobolada Europe ee isu tagay baa dhici doonta ilaahay amarkii waa meel ilaahay wax ka wadaayay 1993 200 sano kadib baa waxa la sameeyay laba qarni kadib 1793 baa hadalka waxa yiri Franklin D. Roosevelt ilaahay amarkii 1993 hadeer 1993 laba qarni kadib 200 sano kadib baa waxa la sameeyay waxaan hadda ay dhaan European Union waxaan European Union ko isku xiran waayadan la ciyaaro markii sanadka 4 sanada adduunka World Cup la ciyaaro maxaa la ciyaara Eurada koobkii Eurada la ciyaaro kubadda cagta Eurada la ciyaaro magacada waxaan u maleynayaa sanada kan Euradii markii koowaad dib baa loo dhigay baa lahaa anu indhood wararkooda ma akhrin sanada kan in la qabto sababtoo 2018 World Cup baa la qabtay koobka adduunka 2020 waxa la qabanayo Euradii baa la qaban lahaa 2022 waa qadar lagu qabanayo World Cup ma garat marka European Union baa la sameeyay ciyaaray sameysteen Champions League de waa kan Champions League inta sanad walba la ciyaarayo oo Real Madrid la iska siinayo Spanish la iska siinayo lagu ixtiraamayo ma garat Real Madrid baan taageeraa ma garatay waa inay meesha ciyaaraha daawatay naadi un baad iska taageeraysaa ilaahay amarkii ma garatay laakiin waa la iska siiyay koobabka waa ogtiin Europe ninka waxan ay FIFA-da dhahaana waa ururka ugu musuqmaasuqa badan ee anigu aqaan waa FIFA waa world number 1 corrupted organization qof aniga iga dambeeya ha weydiinin hadalka ururka ugu musuqmaasuq badan hadaa maqashid adduunka waa FIFA hadalkaygana wax xaqiiqsan doontaa waa ogaan doontaan waxyaalo badan oo FIFA iyo kubadda cagta ku saabsan waan rabay inaad jeclayso laakiin waxa ogaa idinka in ka mido saaxiibadayda inaydin aaminayn hadda marka ay Madrid anoo taageera Madrid koobabka waa la iska siiyay ma aaminayaan dadka qaar kood cileeyeen Ronaldo dhaliyay Albiol baa shaqeeyay Raul Albiol baa shaqeeyay war ilaahay aynu ka baqno mar ciyaaraha mar gaaran ka sheekeynaya xamaasadooday wataan mar raba inaan maxalida hadda aan ku dheeraado marka ilaahay amarkii 200 sano kadib waxa dhacday ninkan ay dhaan Franklin D. Roosevelt hadalkiisii baa rumoobay oo waxa la sameeyay European Union baa la sameeyay ninkaasuna hadalku wuxuu yiri 1793 European Union kan waxa la sameeyay daadeer 1993 baa la sameeyay wadamada European Union kala sameeyay marka oo wax sameystaan lacagta Eurada ay ku midoobaan waxaan oo dhan markaas shuruucda la asxiyay meesha haduu maamul ka jiro horta maamulada wuxuu ku fiicay dumasha nidaam iyo dawlad ay ka jiro mar walba waxba la casriyeeyaa waxba la kala bedelaa wuxuu ku fiican tahay hadda Ugandadan oo kale intii dawladan hadda ay joogto xisbigan talada hayay NRM wax badan bay qabteen shuruuc badan baa la bedelay salaam marka xawaaladaha lacagta dadku qaadanay wax aragtaan wax ku dhigan warqada hadaad wax akhrisaan Bank of Uganda Board of wax ku qoran shuruucdan u yaal Bank of Uganda regulation shuruucda u yaal bankiga Uganda Ingiriiska iska daabaa ku yaal 2004 act baa ku qoran waxa jira wax loo act baa jira actiga waxaan ku qaadanay anagu markii ugu horeysay anigu aan arkay maraan sameynayna maadada la yiraahdo Public Health Law and Code of Practice maadadaas aan waxaan ku arkay markii ugu horeysay actiga markaas aan waxaan arkay awal health fundamentals iyo waxyaalahaas iska jiray laakiin markaas caadi waxaan u arkay Public Health Act shuruucda iyadoo wadanku dastuur uu leeyahay oo dastuurka Uganda wuxuu kala leedahay Constitution of Uganda baa jira sharciga Uganda u yaal baa jira waa la gadaaba waa raqiis sharciga Uganda meel walba yaal iyadoo dastuurkaas uu jiro baa waxa jira intaas oo sharci hoosaada oo wixii acts واحد جرا Business Act واحد جرا Public Health Act واحد جرا Sports and Lottery Act شروع بدن باجرة Business Act بنك Regulation Act جارو ليه مرك هذا بنكية على عقد حوالي دم كله مرك حوالي على عقد سقالنا إنسان بنك واحد مش كل جن
warqad ka socota bankiga Uganda 2004 act يعني شرعي لبكون يأفرتي اللي دجيي تبلو عسبونا سيي مركي الدستور كواحد لقى بدله واحد هذا amendments والدستور كانوا واحد لقى بدله واحد amendments وشور الدستور كانوا شرعي واحد لقى بدله مركا لبكون يأفرتي شرعي اللي دجيي وعلى جاي هذا لبكون يلبي لباتنكا بنكي يوغندا إنه شرعي لبكون يأفرتي وأبديت جرايو وعلى جاي عبا وده 2022 act أما كان أي نكوجر نبى 2020 act شرعي لبكون يلباتنكا laga soo saaray dawladii horta intaas ku fiican yaani shuruucdooda wax ka bedelayaan waxa ugu maqaalaha ay soo gaartay ila waxa jira waxa la yiri warmaama fiic weyn baa jirta horta waan idin sheegaya Soomaaliyeed la yaabina maamaanaas waxay leedahay ishaadu waa kula dhagtaadu se waa ka da'weynta ishaadu waa kula oo maalinta hooyada ku dhashay wixii aad aragtay uun baad aragtay wax ka horeeyay ma min hooyadii dhalay intay dhashay koor wax arkay baa jira ma jiro ishaadu waa kula oo intay hooyada ku dhashay ilaa inta eelka lagu dhigayo ka dhimanaysid inta aad aragtay uun baad aragtay wax ka badan deema baadan arkin laakiin dhagtaadu waa kula marka ishaadu waa kula waa isla egtiin laakiin dhagtaadu waa ka weyntahay oo malaayiin wax aadan arkin baad maqashay ma garatay marka dhagtaadu waa ka da'weyntahay ishaadu se waa kula mar walba waxa aragtid waxa aragtay laakiin waxaad maqashid baa waxa ka badan tahay waxaad aragtay marka sidaadaba waxaad maqlaysid baa mar walba wixii ka badan yihiin waxa aad arkaysid marka anigu waxaan maqlay taasan ku keenay ugu maqaala ah oo maqlay wadanka Faransiiska marka la yiraahdo marka European ku sameysteen baabuur la raaco baabuuradu soo bateen beriga hore Faransiiska magaalada Paris naagu waa isqaawin jireen muruq naaqaawan oo iska maraysa wadanka Faransiiskana ilaahay amarka cawra lagu imtixaamaniyo oo ilaahay ba ku imtixaano ma jiro waxa ilaahay ku imtixaano soo ma jiro wuxuu ilaahay ku imtixaamay cawrada hadda maalin dhaweyd 2018 bay ahayd sax 17 ama 18 labada mid bay ahayd waliba 18 baan u badinayaa 17 baan waliba u badinayaa waan raadin karnaa waad raadin karnaa idinkuba magaalada Paris wax ka dhacay aroos baa ka dhacay arooskaas dadkii ka soo qayb galay oo dhan oo aruuska iyo aruusadu kamid tahay manxiiska iyo manxiisadu kamid yihiin gudiga kuwa duubaya photographerka asxaabtii soo xaadirtay marti sharafta lagu martiyay soray wixii arooska ka soo qayb galay oo dhanba waa qaawanaayeen munuq sharciga arooska oo la waxa in la isqaawiyo ملقدة سيدي عراتم ما عديسك النبي آخرات دتك ولا صوص عريا سيدي خويلات كل شيء يقع قاون بهمن وحي طبعا بيجدي وقف كيسوي سيدي هو يدي كل شيء بوريدي كتال أما بيجدي كتال بآخرة صوص عريا ده أول بقالة دي اسمه جوديني غير فرنسيس اسمه جوديني عروس كاوحي كسو قيب قالوا دن واقع ونايين وحلا بتفتي لا إله إلا وروح على عسكري بنانك تاعنا وعسكري بنانك تدك سوق لا واقع ونا أروح ماشى سوا ماشى الله يعوي فرنسيس كإلهي عورو كو امتحامي عورو إلهي كو امتحامي مركا واحد عضي واحد كذا عضي مركا بريجور مركا بابور تقعدوا صوبتين ناقول بريجور واسقاون جرين فرنسيس مركا الديمقراطية دقاتين دي ملوك مركاسا نكيو غاري ودا وحا arkaya naaqawan ama jirkaasaydi waa arkaya ama gadaba qaybta waxa arkaya qaybteedii dambe adu naaqawan waad garanaysaa waa arkaya markaas soo gaarigiisu speed ku wada oo bunaag u jeedaa moogtahay qam gaari kale ku dhacaya dam shilalkii waa ku batay Faransiiska maalin walba intaas oo shil waa la isweydiiyay marka way fariisteen madaxda Faransiisku waxay maxaa maalin walba shilkeena ku keenaya maxaa maalin walba shilkeena ku keenaya waxa maalin walba shilkeena ku keenaya naagiheeni baa qabdheeni baa qaawan wadada maraya markaas ki gaari watayba isagoo naagtu jeeda buu isleey ka jeeso mise gaari kale uu ku jiraaba qam isagoo gaariga xoog ku wada markaas waxa la soo ragay in naagu waxan ka sharigan waxan ay xirtaano bal sida xoogay la isku dhaamo ma garatay marka maxaa la yiraahdaa waxa halkaas ila gashay yaani dadka cadaanka ama dadka European-ku hadda madaxda adduunka baalka hogaaminaya sida ay iyagu u dhunsan yihiin oo iyagu u baahan yihiin in la soo qabto la soo soco iyo sida dadku ay isaga taabacsan yihiin dadku mar walba waa iska caamo
de inta war haysa iyo inta war hayn baa badan qofka haduu de maalintiisaas wuxuu cuno helo meeluu seexdana helo maxaa la yiraahdaa xoogay wax iska maqmaqlo wara maxaa dhacay liibiyada maxaa laga sheegay oo maqlo uusan wax badan aysan sii jirin laakiin AQ-ga dadkuna wuu ka sareeyaa laakiin waxa fiican qofku marka bini aadamku sideeda intuu meel iska fariisto inuu xisaabtamo lidalika bi saxaabadi dhijireen اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت قدا يعني الدنيا هذا أشقيسو سيدي إناد ويلغا نولانيست يعني نولشيس انت كهرتي نولانيا أشقيسو برواق صورا كن نولانيا واعمل لآخرتك كأنك تموت قدا آخرة هذا أشقيسو سيدي إنا بريد لمانيسو فلا دركونا دي لغوي ماذا ولو بري واد دمانيسا بري واد دمانيسا afar saac subaxnimo birru waa dhimanaysa bal ka war sabaad isu diyaarin lahayd qof walba wuxuu isu diyaarin lahaa sidii ugu dambeysay wuxuu xoolo haysto xitaa dharku qaba uu la bixi lahaa uu sarqaysan lahaa sidaas oo kale la rabaa in aakhiradaada ugu shaqaysatid adduunyadaadana waxa lagu shaqaystaa sidii nin waxa kan ku waaraya marka waa nooc balance iyo wax la isu balance garaynayo yani adoo aakhiradaadina ku dadaalayo salaadaadii soonkaagu ku adag adduunyadaadina ku shaqayso marka baa la rabaa marka dadkii afrikaanka ahaa dhibta haysata mar walbana waa ku socodiya wixii taabacsan yihiin waxa dadka cadaanka ay u akhrinayaan haddana waxa la yaabaa adoo ciyaar daawanaya kubad daawanaya khalad baa dhacaya adigu kubadda waa taawada shuruucdeedii waa taqaana khalad baa dhacaya team baa waxa la rabaa in la reebo oo ciyaarta laga reebo wala rabaa in koobka laga reebo oo kale ama championka laga reebo oo kale ama groupka lagu reebo ma garatay khalad baa dhacaya khaladkii waa la sii daynaya ama waa offset iyadoo offset aba kubaddi ku jiro gooshi dhalinaya waa loo sii daynaya waa laga albitarka uu ka aamusaya because albitarka fiifu ka tirsan yahay ma garatay uu ka aamusaya markuu ka aamuso gooshi waa la dhalinaya teamkii la rabay in la reebo saasay ku haraya teamka la rabo in la reebo hadduu wax weerarayo uu rabo inuu weeraro uu teamka kala weeraro rabo inuu gool ka dhaliyo kii oo saaxiibkiisu baasoon offset ku jirin baa xilleeya waa offset calan wadaha iska taagaya calanka si teamka loo reebo hada intee khalad baa kubad ka dhacay oo aynu daawanaynin Soomaaliya hadaynu isku fahmayno maxaa marka tiimamka qaarna loo reebay qaar dadka sidaas sameynaya baa waxa ku leeyahay inagu cadaalad baa naqaan human right baa naqaan midda kale hada kiiska Soomaaliya waxa la geeyay maxkamadda caalamiga ah intaasoo jeer baa dib loo dhigay marna Soomaaliya laga lama tashan war cadaaladii meeday maxkamaddu maxay ula baxday maxkamad maxay ACC maxay soo gaabay international ma aqaan balada magaceeda ma qabtay AC court kale international criminal court maxkamadda criminal doo qof dambiyada waaweyn gala court maxkamaddu soo lama rabin in cadaalad ahaato dadka cadaalad u kala saarto in alma adeerayaal oo Ilaahay baa idin ku dhaarshay bal maskaxdiina fura oo indhihiina fura maxkamadan adduunka ACC oo maalin walba kiiska Soomaaliya dib u dhigaysa cadaaladda maxkamaddu wado waatee maan Soomaaliya marnaba lagala tashanay maan Soomaaliya marnaba la siinayn dhaqaale lagu siinayn waa maxay kiiskan lagala tashanay Kenya waxay tiri corona jira dib ha loo dhigo Kenya markii waxay tiri lawyer ma haysto dib ha loo dhigo war dhulka Soomaali baa ma garatay maxkamaddu cadaaladeedii aaway anigu ay dad gaar oo ila fikradana waa arkay waxaan qabay inuu sameeyo madaxweynaha hadda dawladda Soomaaliya wadanka madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudana Farmaajo anigu waxaan ka rabay inuu kiiska badda uu ka soo qaado maxkamadda uu dib uga soo celiyo oo Soomaaliya has withdrawn the case Soomaaliya kiiskadii markii tusaalaanaad qof xirtid ama aad soo dacwaysid oo booliisku warqad ka qoraan statement laga qoro lagu kiiska warqad laga xareeyo hadhow qofka markii la rabo inta ama maxkamadda la idin gudbinaya oo maxkamadda idin kala saaraysa ama kiiskaagi waad la laabanaysaa withdraw kiiskaagi waa la laabanaysaa ma garatay waxa leedahay anu kiiska waa ka baxnay annaga dhamaysanina anu waxa rabay madaxweyne Farmaajo inuu kiiska badda ka soo qaado maxkamadda u dhoo markii aanu maxkamadda cadaalad ka weynay oo 3-4 jeer ay kiiskayga dib u dhigtay iyadoo annaga nagala tashan waxana la qurux badnaatay inaan kiiskayga maxkamadda ka soo qaadno uu Soomaalida intuu ku qabto khudbad u dhoo dhulkiina la idin ka maqan ama qori wax la yiri qof aan shantu ka reebin sharci kaama reebo ma garatay haddaydan qori iyo xabad caaradeed ay idin ku soo qaadan oo idin ku dhacsan ma garatay cid idin soo celinaysa iyo maxkamad idin soo celinaysa ma jidho Soomaaliya isku
tashada ama aniga hadda ay raaca ama madaxweyne iga dambeeya raaca maalintay noqotoba aad awood fiican yeelataan weerar qaada baddiina qori ku soo ceshta saasaa la rabay oo dadnimada ku jira inuu dhaho laakiin ay dhahan waa aqbalnay kiiska dib ha loo dhigo waxaas waxba kama soo baxayaan anigu sidaan u jeedo ma ilaahay oo nasru soo roga qof Soomaaliya ee dhulka ku nool ee baddiisa la wareejiyay oo kalluumaysta ah oo xeebta joogo dhulka Kenya leh ama Kenya hadda lagu wareejiyo dhulkaas gacanteeda ku jira kama kalluumaysan kadib intuu habeen laba ragcadood tukado oo waa nin madluum ah oo dhulkiisa la wareejiyay uu ilaahay baryo uu dhaho mataa nasrullaahi alaa inna nasrullaahi qariib guushi ilaahay goorma way guusha ilaahay miyaysan dhaweyn uu qof intuu habeen ilaahay baryo oo sidaa dhaho oo ilaahay samada ka soo xukmiyo oo gaalada ilaahay dhulka uga soo celiyo taas anigu ma sheegin laakiin maxkamaddu intay maxkamad qabato Kenya loo yaro Soomaaliya loo yaro Kenya dhulka khalad baa u qaadateen lacagtii waa leedin celinaya dhulka Soomaaliya leh wallahi taaha sugunina wallahi billahi tallaa ilaahay baan ku dhaartay taaha sugunina inay Kenya intay soo qabatay dhacdo baddiin maxkamaddu intay dhacdo waa in kala saarayna si ninkii shalay day maxkamaddu waa Yurub bay ku taalaa shalay dhulkan Soomaali baa lahayd dhulka gabigiisaba badda xunta ah maaha 30 kilomitir waxba sheegmayso gobolkii dhamaa NFD Yurubiyan baa Kenya ku wareejisay ma wax kula tahay maanta inuu Yurubiyankii dhulkaaga wareejiyay bad aa gadatay inay ku soo celinayaan wallahi baysan kuugu soo celinayn warniyo aqliga furaniyo Yurubiyaanki shalay dhulkaaga ku wareejiyay Kenya sabab hadda maanta uga sugaysa inuu ku soo celiyo warta dhulkii noqoriya qaato soo ceshta waxa roon in dadku wax fahmaan baa roon qalin waxa lagaaga dhageysan mayo ma garatay marka almuhim waxa rabaa inaan fiidiyowga idinku dheereeyo dad badan baa yiri fiidiyowada noo soo gaagaabi haddana waxyaalaha qaar kood wax la gaagaabin karaba ma marka waxaan idinku codsanayaa ummadda Soomaaliyeed baarti 3 maanta intaasan ku joojinaya inaad fiidiyowgayga share garaysaan gurubyada ku share garaysaan channelka subscribe saadaan like to commentiga waxa soo dhan ha la idinka helo khayr baan idin rajaynayaa meel kasta dunida daafida ku jirta ilaahay dartii waan idin jecelahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتين فيديو كانوا كلا أكو كل منه سلامات من كل آفات